oo haday meel joogto aad bay u adag tahay labada inuu meel isugu wada keenan doonayaa buud waxa kale doonayaa Ciraaqna inaan ka taliyo labadii magaalo markaa ugu waaweynaa inaan iyadana ka taliyaan doonaya ninka afraad wuxuu ahaa Abdulmalik ibn Marwan wuxuu anigu waxaan doonayaa muslimku meel uu jooga inaan u taliyo khaliifata almuslimiin muslimiinta khaliiftoodan doonayaa inaan noqdo ninka u taliya meel ay joogaanba dhowr sano ka bacdi ayaa ninka la yiraahdo Abdullah ibn Zubayr dawlad wuxuu ka aasaasay Xijaaz Makka iyo Madiina maamul buu ka dhisay Makka iyo Madiina waa ka taliyay madaxweynena waa ka noqday laakiin xukunkii guud waa lagu haystay wuxuu qacanta si fiican ugu dhigay Makka iyo Madiina meelaha kalena ciidamadiisa ku maqnaa inuu qabsado doonayo muslimka oo dhan hankiisi mar haduu ahaa Makka iyo Madiina inuu ka taliyo in muddo ka talinaya markii dambana Xajaaj baa loo soo diro waa laga qaaday waana la dilay xukunkiisu wuxuu ku dhamaaday Makka iyo Madiina waa intuu niyada ku hayay walaalkii Mus'ab Sukayna gabadhii la oranayay iyo Aisha bint Talha labadii gabdhoodba waa helo waa guursaday Ciraaqna barasab buu ka noqdo waa ka taliyay isaguna wixii uu damacsana waa helay Abdulmalik ibn Marwan oo yiri waxaan doonayaa muslimka oo dhan inaan u taliyo taladii muslimka oo dhan buu qacanta ku dhigay waxa ugu dambeeyay ninkaas Abdullah ibn Zubayr oo Makka iyo Madiina ka talinayay Xajaaj buu ku saliday tabaadna Xajaaj baa uga dhiciyay wuxuu kula wareegay Makka iyo Madiina iyo Baghdad iyo muslimiin u joogaba isaga ayaa qacanta ku dhigay wuxuu gaaray halkii uu doonayay khaliifata almuslimiin buu noqday waxa soo haray Abdullah ibn Umar talabkiisu wuxuu ahaa anigu jannaan doonaya mar hadii kuwii kala jannadii ay gaareen wixii ay doonayeen ay gaareen isagana waa loo filayaa ahlul janna inuu yahay waana saxaabada jannada loogu bushaareeyay loogu riyooday ayuu waxa weeye kamid yahay amalkiisa iyo cibaadadiisa iyo dadaalkiisa adduunyana wixii laga arkay laga ogaadayna waa nin sida la filayo loo badanayo ahlul janna awi isagana waa u rajeenayna inuu waxa weeye muraadkiisa gaaray waxay tusaale u tahay waxa qofku uu niyada galiyo ee uu go'aansado himilihiisa noqda ee uu ku tala galo haduu tacab ku daro inuu gaarayo xilli uu gaaraba khudbadaydu maanta waxay ku saabsan tahay inta soo dhawaa hordhac weey hawlo badan baa inoo hor yaala hawlaha badan ee adduunyo kala duwan mar waxa ay tahay waa cibaadadaada salaadaadu ma mid iska ridaba mise waa salaadii ugu wanaagsanayd waa salaadaad ku khushuucday waa hadiyad ilaahi subhanahu wa ta'ala aad u qadimayso waa nuucee cibaadooyinka kale aynu sameynayno ayaa lamida waxa lamida oo hanka ku saabsan ilaahay baa ku nicmeeyay caafimaad ku siiyay masaariftaadii ku siiyay magac iyo maamuus ku siiyay muuqaal wanaagsan ku siiyay ku karaameeyay ehel iyo qaraabo ku siiyay markaad eegto dhinac walba Allah subhanahu wa ta'ala qof baa halkay u joogto waa ku nicmeeyay nicmada noocaasna uu jeedu kaleeyahay inaad Allah subhanahu wa ta'ala ugu cibaadaysato oo aad ku xusto maxaad ugu abaal guday ma macaasidiisa iyo wax ilaahay cadho gelinaya baad u adeegsanaysaa mise hankaaga iyo gobonnimadaada iyo wanaagaagu wuxuu alla ku siiyay inaad ugaga mahad celiso inaad u adeegsato wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu jeclaa iyo wixii Allah subhanahu wa ta'ala aad ku raali gelinaysay maanta wax ka qiimo badan ma jiro ilaahay ku abuurtay inuu raali ka noqdo jannaati cadn wa masaakin tayyiba fi jannaati cadn markuu ilaahay jannadii ka soo sheekeeyay guriyaheeda nicmooyinkeeda qofka galaa waligiiba inuu ku waarayo waxa yaala markii